kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo ay joogtaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan idinku haynana waxa kamid ah ciidamadii ugu badnaa oo u galay ciidamada lafta gareen iyadoo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay qaasatan ciidamadii ka yimid Buuraha Kaba walaal anjaaha dhawaaw howlgalkii dib u xureynta manada Saabilaartuha ka dhawaaw sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo u diyaar garoobaya dagaal siyaasadeed oo la fajabisa kadib markii mucaaradku ay qaadeen talaabooyin dhinaca dagaalka ah oo ay ku raadinayaan ama ku urursanayaan ciidamadii ugu badnaa oo la rabo in Xasan Sheekh lagula dagaalamo Xasan Sheekh oo ka gaashaamanaya isagana talaabooyinka mucaaradka waxa uu qaaday in ciidamada uu mushahar kordhin u sameeyo iyo sidoo kale ciidamadii ugu badnaa oo keenay magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa barnaamijkeena xulashada wararka oo inta badan ka daawataan Waama TV aan ku bilownay magaalada Baydhabo duleedkeeda maanta waxaa lagu soo dhaweeyay ciidamo aad u tiro badan oo kamid ahaa ciidamadii maleeshiyaadka degmada Buuraha Kaba ee la socday ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan ciidamada Koonfur Galbeed iyo waliba maamulkii hore ee Koonfur Galbeed halkaasi waxaa ku soo dhaweeyay ciidamadaasi wasiirkii hore ee amniga iyo waliba afhayeenkii madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo saraakiil kale oo ciidan iyadoo halkaasi maanta si weyn loogu qaabilay boqolaal ciidamo ah oo ka soo goostay dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya safkeeda ahaa kuwaasi oo markii hore dagaalka ka soo bilaabay degmada Buuraha Kaba ee gobolka Baay mid kamid ah taliyayaasha soo dhaweynta sameeyay ayaa halkaasi ka hadlay bal marka hore aan wada daawano hadalkiisa walaal anjaaha dhawaaw howlgalkii dib u xureynta manada Saabilaartuha ka dhawaaw waliba kamid ah degmadii lamaad oo maana gurmud hadiraasa iyo kamid ah degmadii koohoreyti weejid yahayti degmadii lamaad degmada Buuraha Kaba runtii reer Buuraha Kaba ciidanka taana deeri ciidan kale ku sugan waana ka filadaan wali arday ka rajweeyna in mayl raayis ciidamada mayl raayis dib u xureynta Saabilaartu dhiibti oo xoog badan degmadaas ku doonaan maadaama degmada mayl raayis walbadan ana warbaahintan sheegana noo dhahay kullay wali maleeyay in mayl raayis ka beeri doonaan howlgalka insha Allah ciidankan koray oo walaalkaan mayl raayis kabtan anjaa hogaamiye waana deeri wali diyaarsan ciidamadan iyo ciidamo kale oo goobo kale ka suganba anti mayl raayis diidan wali awteedan hadiidan antiyo diidan wali awteedan hadiidan ujeedadaanan iyo inay hadafkaana ma reer goona ama qabiil goona intii uu beegsan wali maana arday beegsan doogna fikrado oo mana gurxan oo mayl raayis ka salaysan istirnaab iyo faquuqa ka salaysan mana arday beegsan doogna dadka kale mana reer Koonfur Galbeed dhammaan reer Koonfur Galbeed anoo shil qaadan meel kasta iyo roogan wali maana ka kalsoonadaan ciidamadiyo wali mayl raayis kalsooni buuxda ka qaba doonaan hadii Ilaahay ini maana beegsi goone ama reer goone la beegsan doon reer goone la beegsan doon taas kalsooni ka qaba insha Allah la kiyaaba qofka bani aadanka dimada shaqo ka jaad shaqo maana isoo ka jaar howluwada isoo wal soo bifada intii wal ka halaaw biidin Ilaahay wali halaawina maana arday wal sahadoon wali sahanayna kulli intii ninka mahad naga doontan arday rajeeyana ma dhiyo doonta ini maana qaldaad arday ku dhii insha Allah si habsamala oo mayl raayis qurux badan oo arday wada tashi helnama walaalnimo ka salaysan howlgalkan socdo doona wali maana anta arday kala baag goonaha ka jeedi faday dhammaan degmooyinka oo reer Koonfur Galbeed sideed gobol dadka degaayaan ama dadka ka abtirsadayaan ciidankin howlgalkan shaqadan maana howlgalkin wali lana kooyo howlgalka ka beere mayl raayis madaxweynaha oo waqtigiiba dhamaaday oo taariikh tumushan dhamaatay ay marba mayl raayis jidku garjije aseen ka falanay insha Allah taala maskanta fiican tali doonto reer Koonfur Galbeed ayajo ka talada doonaan walaalaal waliyo ka taladan la weela doon wal goona iyo lan goona wada madhi doonaan oo namasin liini wal Allah wal artel weela erne weela sang masangaran ayaha Koonfur Galbeed intina nisukooy la ka talada hadii mana dalka gudaaji roogan iyo hadii dalka dibadis rooganba taladaas iyo halgankaas
noo wada dhahayta insha allahu ilaahay idinjay waana ka mari dhali doogna waana ka guulaysan doogna shakama noo ka jarta guulaneen moogata geed gaaban iyo geed dheer meelinu kornob towna ka daari doono male may kale mana arday inta farfaday dowladaha caalamka oo mayla rays daneeyaan Soomaali dowladnimadii iyo ama dib u kabshadii mana daneeyaan oo beenta iyo barbaqaandada waxyaabahan jarna la siin sheegahay oo nimankaasay argagixisu qaabkaasu kida wakada leh walba ma ka jar walaasay wal mayla rays dowladnimada ama arday system ka arday federalism ka kala dagaalamayo wilaadkaasay mana arday wareerka mana wali kala mayla rays hakanaway mayla rays Soomaali geek hata waqti oo wareer iyo waqti mayla rays waali lu kuma marogda Soomaalida fiyaw ama maskanta fiyaw ama dadka fiyaw taliyana lana warkan taasa kooba mucaaradka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin xooggan oo ay u diyaar garoobayaan sidii ay mar kale u bilaabi lahaayeen badbaado qaran labo mucaaradka ayaa waxa ay sameeyeen guddiyo hoosaad kala duwan oo ay ugu talagaleen in ay sameeyaan abaabul ciidan oo xooggan kaasi oo ay doonayaan in ay magaalada Muqdisho ay kaga dhawaaqaan sidii tiriibkii hore ama xilligii farmaajo ay ugu dhawaaqeen badbaado qaran 2 taas oo ciidamada furmaha jooga ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka soo saareen furmaha dagaalka rag ay ka mid yihiin xildhibaan Sanbalooshe iyo waliba Cabdi Cawaale Qaybdiid oo isagana ka mid ah sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo xil saaray sidii ay u bilaabi lahaayeen hawshaasi waxayna hadda mucaaradku ay ka shaqeynayaan sidii mar kale ay u abaabuli lahaayeen badbaado qaran labo oo Xasan Sheekh Maxamuud loo ogolaysiin lahaa in uu talada dhulka dhigo wadahadaladii ugu dambeeyay ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka ayaa fashilmay isagoo oo diiday Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday in uu sameeyo wax tanaasul ah oo ku saabsan dhinaca doorashooyinka iyo waliba dastuurka arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ay aad u kacsan tahay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagana la soo sheegayaa sidii uga gaashaaman lahaa tallaabooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ay wadaan mucaaradka waxaana la sheegayaa inuu qaaday laba tallaabo oo muhiim ah kuwaasi oo kala ah in uu marka koowaad ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya uu u kordhiyay mushaharka oo uu askariga gaarsiiyay $300 taasi oo uu talagalay in aan marnaba siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan midnaba aan laga soo saarin furmaha dagaalka ciidamada sidii ku dhacday madaxweynihii ka horeeyay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu laftigiisu uu sameeyay waxa kale oo sameeyay in ciidamadii ugu badnaa uu keenay magaalada Muqdisho taasi oo uu rabo in uu mucaaradka mar kale culays uu ku sameeyo haddii ay sameeyaan dhaqdhaqaaq military ama dhaqdhaqaaq ciidan si uu durbaba uu u soo afjiro daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii xulashada wararka oo si toos ah uga daawanayseen Wama TV fadlan daawad haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada kusoo biir channelka subscribe noo saar barnaamijka like garee oo share garee